waxaa jiray nin ka shaqayn jiray shirkad wuxuuna ka ahaa guddoomiye ku-xigeen. waxa uu dhibaato had iyo jeer kala kulmi jiray guddoomiyihiisa, haddii aan lahayd dallacsiin, haddii aan ahaan lahayd abaalmarin iyo sidoo kale weji furaan intaba kama uu helin guddoomiyaha isaga ka sarreeya. waxa uu muddo joogaba waxa uu go'aansaday inuu ninkii dilo si uu booska isaga u galo. waxa uu tagay nin saaxiibkiisa wuxuuna ka codsaday in uu tala siiyo si aan loo fahmin, maadaama haddii dilka uu si toos ah u geysto ciidamadu ama booliisku ay qabanayaan. ninkii saaxiibkiisa ahaa ayaa yiri sababta aad u dilaysa maxay tahay. waxa uu uga sheekeeyay dhibaatada mar walba uu ku hayo ninkan. waxa uu galay gurigii uu joogay, qaybtii qolkii uu deganaa, wuxuu soo saaray kaniini wuxuuna ku yiri kaniinigan sii ninka. mar walba oo aad kaniinigan siinayso waxaad ugu daraysaa shaax. ogow ninkan si sahla kuma dhimanayo oo adiga ayaa doonaya inaan la fahmin. waxaad samaynaysaa 6 bilood ayuu kaniinigan qaadanayaa ninkan, waxayna dhimashadiisu aad sugaysaa muddo 6 bilood ah. maalin walba oo aad siinaysid kaniinigan waxaad ugu daraysaa shaax, waxaad u geynaysaa shaaxaas gacantaada aad ku samaysay adigoo hadal macaan kula hadlaya. 6daas bilood ee ninkan inta uu ka dhimanayo waxaad samaynaysaa inaadan wax tilaabo ah oo xumaana aadan qaadin, si aan loo oran ninkani waxa ay isku dhacsanaayeen ku-xigeenkiisa waxaana shaki ku jira inuu isaga dilay. sidaas la ajligeed waa inaad u samaysaa wax walba oo isaga farxad gelin kara. ninkii talada ayuu qaatay. maalinkii ugu horreysay shaaxii ayuu u soo shubay. waxa uu ugu soo diray kaniinigii isagoo ku yiri booskaygii waa kan shaaxii gacanteeda aan ku soo sameeyey. markuu dhowr maalin sidaa sameynayay, ninkii booska ahaa wuxuu la yaabay ninkan uu xumaynayo sida uu isagana u wanaajinayo, wuxuuna bilaabay inuu dhankiisa ka wanaajiyo. maalmo kadib wuxuu isugu yeeray shaqaalihii wuxuuna yiri shaqada waxaa wadaya oo madax ka noqonaya ku-xigeenkeeda, hadda kadib isaga ayaa la xiriireysaan. markii la gaaray xafladii sanadlaha ahayd waxa uu isugu yeeray shaqaalihii wuxuuna siiyey abaalmarintii ugu sarreysay ku-xigeenkiisii. ninkii ku-xigeenka uu ahaa ee doonayay inuu guddoomiyihii ka sarreeyay isaga ama agaasimihii ka sarreeyay uu dilo aad buu uga qarracmay runtii arrintii, waxayna la noqotay arrin dhibaato ah maadaama ninkan uu horay uga la'aa dallacsiin iyo sidoo kale inuu abaalmarin siiyo, haddana uu bilaabay inuu intiiba siiyo. wuxuu dareemay inuu ninkan isagana sun siinayay, isagana uu wax wanaagsan u sameynayay. isagoo aad u murugaysan ayuu saaxiibkiis ku laabtay, wuxuuna uu u sheegay arrintii. wuxuu ku yiri warniyahu tala ma taallaa hadda ninkii aan ku badbaadin karno. ninkii aan ogaa ee dhibaatada ogaa ii geysan jiray hadda wuxuu bilaabay inuu si saa'id ah ii wanaajiyo, waa uu dallacsiiyey, wax badanna waa ii qabtay. saaxiibkiis ayaa qoslay, wuxuu ku yiri saaxiib kaniiniga aad siin jirtay ma ahan kaniini sun ah ee wuxuu ahaa fitamiin, laakiin waxaan doonayay inaad adigu xumaanta uu ku xumeynayo wanaag ugu bedesho. ma jiro qalbi ku dhiiran kara inaad adigana wanaajiso isagana uu ku xumeeyo. qalbi kasta oo go'aansada inuu ku xumeeyo haddaad wanaag ugu bedesho isaga laftirkiisa wanaagii ayuu qaadanaya. sheekadan waxaa laga dheehan karaa ujeedkeeduna uu yahay in qof kasta oo ku xumeeya adiga aad wanaajiso, ugu dambeyn isaga ayaa ku wanaajin doona.